السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت الله وإذن سلام دمانتين meel walba aad joogtaan subax wanaagsan galab wanaagsan maalin wanaagsan intaba waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada mar labaad Ramaala Cooking Channel. maanta waxaa idin hayaa bocor dhuudhuub ayaan rabaa inaan idin sameeyo. Halka ugu jeedaan waa soo fiiqay, marka waan jarjarayaa. waxaan u jarjarayaa si yar yar, dhexda ayaan ka bixinayaa. marka dhexda ka saaro ayaan waa yareynayaa si dhuudhuubana u jarjarayaa insha Allah. markaan jarjaro ayaa haddana waan nadiifinaynaa. marka aan nadiifino waxaan rabaa inaad digsigaas meesha ugu jeedaan inaan ku shubo oo aan ku kariyo. saan u karinayana bal ila fiirsada insha Allah. haatan waxaa inoo socoto jarjaridii. saas u jarjareysaan aadba sida jeceshahay, laakiin dhuudhuub in loo jarjaro ayuu ku qurux badan yahay bahalka. marka kadibna digsigaas ku shubanaynaa. waxaan ku karinaynaa hadduu rabbi raali ka noqdo caano, laakiin caanaha waa whole milk ku fiican yahay haddii aad haysatid. laakiin kuma karinin caanaha subagiisa yar yahay aan ku karay. marka hadda aad haysatid kan subaga uu ku badan yahay ku karso, haddii aad jecleen kan subag yar ku karsan kartaa insha Allah. isku mid weeye, laakiin se kaas xoogaa yar ka tacam badan ka dhadhan fiican ah. marka sidaas u jarjaraynaa. waa dhaqaynaa, waa nadiifinaynaa, wasaqda ka saaraynaa. kadibna digsigaas ku shubayaa. digsiga markaan ku shubo waxaan rabaa inaan ku daro caano ayaan ku daraa. caanaha qiyaastii 1 koob iyo bar maxsaas oo kale, yacni wax yar inuu kasoo yaro kor mara loo baahan yahay. bocorka inuu wax yar kasoo kor maro ma u baahna, karsiimo badan ma u baahna, wax yar inuu kasoo kor mara loo baahan yahay caanaha. marka hadda digsiga ku ridanaynaa. waa soo dhaqay, digsiga ku ridanaynaa. digsiga weli ma aan daarin, bes ma u baahna inaad preheating sameysid, inaad si kululeysid ma u baahna digsiga. marka saas ugu shubtid caanaha ku kordhisanayna. hadda dabka daaraa ma jeedaa. marka caanaha ku kordhinaynaa, caanaha ku shubaynaa. kadibna waxaan sameynayaa, waan daboolayaa si uu huuro oo maaragtay bahalka xoogaa uu bislaado insha Allah. caanaha u jeedaan waa caanaha cagaarka. ka cagaarkana subaga uu ku yar yahay, kan buluga ayaa subaga ku badan, gaduudkana waa iska biyo. marka kan aan hadda ku shubay waa kii dhexe. marka subagiisa ma badna, it will be fine, laakiinse buluga xoogaa yar ka tacam dhadhan uu leeyahay. marka insha Allah intaas caana ku shubay waa 1 koob oo kale. marka xoogaa yar bocorki uu la eg yahay caanaha. marka waa 1 koob oo kale, ma badna. kadibna wuu karayaa insha Allah. markuu karo waa daboolayaa, waa isla huurinayaa. markuu huuro ayuu wuxuu noqonayaa yara jilcaya. kadib ayaan waxaan rabaa inaan wixii kale aan ku dari lahaa aan ku daro insha Allah. mujeeda waxa halkan noogu jiro heel, qorfo kuma daraayo. heel iyo qorfa ku jiro, laakiin heelkan kala soo baxaya. heelkaas aan waa tumayaa. markaan tumo ayaan korka kaga darayaa. heelka aad u carfinayaa bocorka, wuxuu u yeelayaa caraf fiican oo kale afka u yeelayaa insha Allah. masha Allah. waxaan ku ridanaynaa heelkeeni. waa tumanay. heelka aad u caraf ugu yeelaa marka lagu kariyo bocorka, caraf u ka dhigayaa. waxa aan ku sii
daraynaa insha allah sokortaasoo aan koobka ku cabiranayo, inkastoo aan koobka dhan aanan ku shubeynin. Horta waxaan ku shubayaa haafka kalena in yara ugu darayaa insha allah. haddaanu arko inaan wada baahanahay waan dhammaystiray, haddaanu arkana inaan ma aragtaya oo intaasay ku filan tahay waan ka kala reebay insha allah. haafa ku shubayaa horta. waxaan rabaa marka hore inuu caanaha gurto, kadibna sokorta waa inay ma aragtaya gaduusaayo oo wixii isku dhajisaa insha allah. haafkaasa ku shubay, inta kalena gadaala ka arki doontaan. waa u yaryareynayaa insha allah. haddii kale ma rabo inuu wixii dhan ay wada macaan noqdaan oo aad u macaanaadaan. taasaa diidayaa. wax la cuni karo oo ma aragtaya oo dhadhankiisana fiican yahay, wanaagsan. batarkeeni caadigan ku darayaa, baking butterka 25 gram oo kale ayaan ku darayaa. batarka badanna isna good ma fiicna. 25 gram oo kale ku darayaa, inafay ku tahay intaas. kadib waxaan gadaal kaga darayaa subageeni Soomaali. subaga ayaan kor kaga darayaa, wax yar aan ku carfin doonaa insha allah. kaasna aad uu carfayaa asaga iyo heelka iyo batarka markay isqabtaan, maasha allah. caraf keliyuu noqdaa. bahalkana wuu macaaneynayaa, tasty u yeelaya, dhadhan u yeelaya insha allah. hata caanahaasoo dhan wuu gurayaa. waxaa la rabaa inuu guro oo eber noqdo. ujeedaa sokorta haddana in yar kale ku kordhinaya. saasaa la rabaa inaa xoogaa markii kow caanihii weli karayso maba aha. marka caanahaasoo dhan inuu baabaa la rabaa oo meesha dhan uu ka titirmo. wuu baaba'ay ma ujeeda caanihii. marka waxaa isku soo harayo waa sokortii iyo bocorkii iyo iisheeg iyo subagii. sabiiba korka kaga darayaa. haddaa rabtid ku darso, haddaa rabtid lows ku darso, hadba sidaa aad rabtid aday ku qosaysaa. waxyaabo badan korka laga daraa jiro. waxaa kaloo ku darsan kartaa haddaa rabtid qumbahana aad usii macaaneeyaa. qumba ku darsan kartaa. mandal looska ku darsan kartaa. looskii kale ku darsan kartaa. sabiibka ku darsan kartaa. fruitka la qalajiyo kale, jeeriga iyo waxaasoo kale oo la qalajiya korka kaga darsan kartaa. hadba saa jeceshahay insha allah. caana wuu guri, wixii dhan waaba iska diyaar maasha allah. waa kasoo dejinaya markuu sokor kale in yara kor ugu darayaa. hadda bis wax kale kuma daraayo, intaasaa kareeba ujeeda koobkii dhamaa. marka bocorkana waa 2 bocor, 2 xabo bocor aan jarjaray. batarkana waa 25 gram. maxaa ku soo haray, maxaa kaloo ku dara caanaha waa koob ilaa iyo koob iyo bar. bis bocorka inuu kasoo koro maraa loo baahan yahay. intaas loo baahan yahay iyo dhowr xabo heel ah aad garaacday insha allah. waa kana subageeni Soomaali. subagaasa in yar korka kaga daraya suu carfo. wax yar markaba caraf kaliya ugu baahanahay. bes waa 1 teaspoon oo kale, may 1 spoon teen weyn, qaadadeena weynayd oo cuntada oo kala weeye. marka intaas ku filan. caraf kaliya lagu baahaya because bataraa ku darnay. batarka inaf ku ah subag ahaan. marka khalaas cunadeena way inoo kartay, waa diyaar maasha allah. waa macmacaan aan caadi ahayn, macmacaan oo maaragtaya after food weeye, cuntada lasaga dejinayo oo xiiso badan runtii. ana mar walbana la sameysanin oo la cunin. insha allah soo tijaabiyo, waa ka heli doontaan. aad u macaan yahay. koob gaxwo u shubo,
maaragtaa galabtii inta isku dayay ha iska badinin, laakiin in badan aan saxanka ku ridisa idin tusiya ma loo baahno. waxaa loo baahan yahay wax yar inaa maaragtaa because sokor badanaa ku jirto. sokorta badanna biniaadanka uma fiicna sidiisaba, laakiin intaasoo kale 2 qof aa cuni karto. koob qaxwo hadaa ku cabtid after food, maasha allah aad u macaan yahay runtii. waa wax maasha allah aad u fiican oo aad ka heli doontaan insha allah. sidaasuu kusoo baxay walaalaha sharafta leh. waxaa idinka codsanaynaa inaa commentiga iyo like iyo subscribe-ka, share-ka kulliba inaa noogu dadaashin, aad naga baqiilin. baqiil ha naqanina. waa walaashiina Ramaala oo idin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.